habeen wanaagsan kulay caawina kulan black booster ayaa jiri doona waaweynka ah oo Liverpool iyo Arsenal u dhaxeeya. Arsenal haday badiso 8 dhibcood bay horyaalka ku qaban doonaan, laakiin Liverpool waxay rabaan in Arsenal iska ordaysa gaabka ay ka soo yareeyaan bay doonayaan caawa ku dhagaan bay doonayaan ugu yaraan xataa 2 dhibcood ay rufka siiyaan haday awoodi waayaan inay garaacaan. daba ciyaaryahanada mugtahay qaar ka tirsan xataa Liverpool ciyaartooydu waxay ku leeyihiin hadda Arsenal kulan easy kama soo horeey ku leeyihiin laakiin saacadan oo kale Szoboszlai inuu sidaas yiraahdo ma ahayn tiin isaga haysatee afaras maxaa idin geliye reer maxaa la dhahay Liverpool laakiin banana alaabo waxa laga yaabaa soo saas yirina in iska ciisa waa laga yaabaa daacadii niman horta Real u socdo waa nimankan Arsenal wayantan waa loo waabsan yahay horaalkan qaadi karaan baa loo maleynaya Liverpool raga kama qanbaalisay laakiin balaayo wali ku dhex jirta Liverpool balaayo ayaa ku dhex jirta hadda saan ciyaartu maleyn waxa leedin Arsenal Liverpool way garaacaysaa nagada wax ka duub baa laga yaabaa meeshan caawa ka aragtaan baa suurtagal laakiin Szoboszlai oo kale waxa uu leeyahay runtii yaa yiri Real baa January lagu guuleystaa saas tagay Arsenal dhoohan baa tiira amus meel fariisto tagay runtii xayta dadkina waalidii ku furan January Real lagu guuleysanay qajajacay qawaacad noo keenteen waxaad ma naga dhigteen sidii inaga oo Champions League inaan la ciyaarin uu leeyahay runtii niman Real ka soo qaaday waxaad iska dhigaysaa niman Real ka bislaystay war 6 dhibcood Real lagu bislaysan buu tagay runtii marka uma maleyn uu leeyahay caawin aan la ciyaari doono koox Champions League Real ka qaaday ama soo qaaday iyaga ayaa la ciyaaraya kooxda Real ka soo qaadatay AFC Liverpool buu runtii marka dadka wuxuu taagan yahay Premier League saas easy uma har Arsenal waa qaadna geedkan Man City waa kuftay waryahay joogo yiri energy iska dhameynina idinkoo isqarri jiray oo maanta is oomin jiray baa Real ka dan leedka qaadi jiray runtii marka Premier League ismaan uu leeyahay January kuma guuleysan kartid anu ma leyn la ciyaarayna Champions League iyaga la ciyaaraya Champions League wariyahay ninkii waa gamay laakiin Liverpool markii ugu dambeysay ay ku soo badisay garoonka Arsenal waxay ahayd 2022 dadkii Liverpool berigaas ka oo yaani ku soo badalkaas kali 3 ciyaaryahan baa ka jooga kooxda oo ku soo haray bis Alisson Van Dijk iyo Robertson ma intaas baa hadda kooxda ka jooga macnaha Mohamed Salah ma qeyma laga wadaa macnaha hadda kooxda ma joogo marka waxa lagu leeyahay dadkii maalin safkood ku soo bilowday 3 baa kooxda ka jooga maalin ragii maalin safkaas Liverpool kamid ah kuwan garaacay 3 baa hadda ka jooga habeenka marka Arsenal gurigeeda aad ku soo badisaan idinka gurigaas waxa idinka dhigo Anfield idinka Anfield xaq mugu dhigtino ma dhibteen oo ku badilaan tan lagu timo halka kaas Arsenal idinkana hadda inta lidinka awooro macna Anfield kale ma ku badin kartaan baa idin leeyahay runtii 2 ku dambeysay reer Liverpool ilaa ku soo badisaan taasna waa taa mid kale waxa leeyahay Liverpool khasaaradii weyn ee gasho waxay ahayd markii Zubimendi lagu garaacay oo Arsenal ku garaacday hadda Zubimendi waxa uu leeyahay wuxuu ahaa gobol ka maqnaa in Arsenal ay awood u yeelato sanadkan horyaalka ku guuleystaan Liverpoolna ninkaas inay lumiyaan ay sidaan dhan ugu dhibaatoonayaan marka waxa uu leeyahay runtii heshiiskaas oo labadan suuq ay ku dagaalameen ayaa hadda horyaalkan go'aaminaya Liverpool iyo Arsenal suuq wuxuu ugu dagaalamay Zubimendi go'aankaas ama tartankaas suuq ku dhex maray ka hor ciyaartan ayaa go'aamiyay horyaalkan cidiskan qaadaysa oo Arsenal macna waxay ku leeyihiin ninkan wuxuu ahaa Zubimendi qof muhiim ah oo ka maqnaa kooxdan Arsenal meel kasta way ka dhisnayd ka marka lagu soo daray Arsenal Champions cid ku diiday doonto malaha runtii Liverpool maalintaas baa horyaalkan hadda soconaya laga qaaday ugu runtii inkastoo tabaru laha wali xaalad waan soo celin karnaa Liverpool tababaradu laha hay'ashii joogteen bana laga baahan yahay wallahi runtii wili hunguriga ku jira hadalkiisan ka dareemayay ugu dambeeyay marka ninkan Zubimendi aad buu Liverpool ugu dhawaad 224 Arsenal baa duubatay 1 milyan Liverpool hadda khalad weyn gashay baa la dareemaya hadda wax weeyaan way isticmaali lahaayeen balleerinka Zubimendi wax weeyaan waa daafac qadka dhexe weeyaan no 6 controlka ciyaartu haya kubadda ay ku guuleystay ciyaarada ka soo qaata wax weeyaan waa nin baasaskiisu degan yihiin wax weeyaan difaacuna aad u soo kaabo weeyaan caawiya waliba statistics waxay muujinayaan inuu yahay ninka ugu interception ka badan kooxda Arsenal ciyaaryahanada kooxda Arsenal ciyaara siisakan waa ninka kubadaha ka qalda ciyaaryahanada ka soo horjeeda maanta dhag uu ka siinaa kubadii qofkii asagoo u saxantay uu ka qaldaya ee ka soo horjeeday jilaafada ugu badan ee labaad ugu badan Arsenal isaga sameeyay sidoo kale waxa weeyaan macnaha siisakan horyaalku sidoo kale waxa weeyaan waa baasarka waa mid kamid ah baasarada ugu fiican horyaalka weeyaan kubadda baasa sidoo kalena waxa England aad buu ula qabsaday Zubimendi wacdaradiisa iyo la qabsigiisa kooxda waxay keentay Declan Rice in loo ogolaado inuu weerar sameeyo maalmoodna gool uu keenay Rice iminku waa xur baa la siiyay xur baa laga dhigay maxaa yeelay positionkiisa Zubimendi xiray wuxuu leeyahay Rice iska dhaqaaq adiga goolkaaga raadso
ماشي أنا كاحرة دفاع عن عاوني ولا رنتي هذا الرئيس حرمة يوهلا ويركو هذا لا بقول إنه كده اللي كحدة بانمود أرسنال wuxuu ugu yeeran rays inuu yahay faraskii bay ugu yeeraan maxay la energy-giisa marka rays berigii hore wuxuu ku xayrnaan jiray booska Mendy ku xayrnaan jiray imika Mendy wuxuu leeyahay war iska dhaqaaqo ana meesha ku difaacaya Arteta wuxuu yiri Mendy waa nin aad u aqli badan aadna u maskaxdiisu u shaqeyso oo go'aan degdeg qaata Arteta wuxuu ugu yeeray ninka kan inuu yahay ciyaaryahan dhameystiran buu ugu yeeray Mendy Arsenal imika waa koox balance ayuu ka dhigay ninka ka Mendy wuxuu ka dhigay kooxda Arsenal koox aad u xoog badan buu ka dhigay runtii heshiiskaas Arsenal Liverpool ay ku garaacday baan horyaalkan go'aamin ugu runtii oo maxaa yeelay Mendy wuxuu ahaa gobol ka maqnaa kooxda Arsenal mid kale xataa wax qabadkiisa hadda ayuu sii kordhay bilgiisa soo marka loo fiiriyo horta ninka u jeedan Mendy saas aan looma amaanaye war Mendy Rodri oo taqaana ba wuxuu yiri ma taqaana war anigu intaan xulka Spain ka maqnaa nin rag baan kaga tagay xulkaas aan ku aaminsanaa oo Mendy laanta Spain wax qabsan karto oga wuri ila Mendy halkaas joogur macna inta Mendy markaas Arsenal ma imaan wali ka warnay afar gool ayuu ku lug lahaa afar sid ciyaar rusad ciyaaray laakiin iminku Arsenal 25 kulan uu ciyaaray waa si kala soo dhaaf Mendy markuu ka soo tagay afartan sid kulan buu kooxda siiyay afar gool ku lug lahaa shar si caawin laakiin iminku kuwan wuxuu siiyay 6 gool already ba ka badan goolashii 25 ciyaar kaliya marka ninkan Arsenal uu ka maqnaa wali runtii taawata mid kale dagaalka Saka iyo waxa aad loogu hadalhayaa iyo Maduki waxa la ugu dambeyn Arsenal waxay heshay nin la kula tartamo booska xogaa ka nixnixiya Saka bari hore waxa la jiray ninkan Saka ma shaqaystaha ah marmarka qaar uu sigtaa cid buseesh kula dagaasho ayuu leeyahay lahaa labada nin waa laba nin saaxiib Bukayo asaga ninkii dilla keenstay ayaa lagu runtii heshiiska markii oo la keenay ninka la yiraahdo Maduki ciidanadu Arteta uu weydiiyay yiraahdo ninkan ma keenaa waxa kamid ah Saka kan buuri waa inuu tartamaya wareegga marka ninka dilla asla ka soo runtii ilaa hadda laakiin Saka uma muuqdo ninkan kale maxaa la raadiyay kooxda jooga Maduki boos inuu kala bixi karin bal arkay Saka laakiin ugu yaraan Saka dhidida laga keenay xogaa laga cabsin karaa marka wax weeyaan waxa lagu leeyahay labadan laakiin saaxiibo ay ahayn waqti dheer Bukayo Saka ayaa go'aansaday in Maduki kooxda la keeno waa ninka hadda booskiisa kula tartamayo weeyaan laakiin saaxiibo ay intaan isiraantoodii hadda position ka xulka England ikan Arsenal way ku dagaalamayaan laakiin marka Arsenal la keenin asla yiri hal la keeno haddana position ku haystaa marka haduu ninkan Maduki asgabgablow hadda marka haduu tooso Bukayo ninka dilla asal uu noqon doona haduu la asal lii doona adile ninkan wactay oo dulqaado marka wax weeyaan inkastoo Bukayo Saka positionkaas cid ka leh aanu jirin haddana Maduki xoogaa inuu yarooy loo maleynaya marka wax weeyaan Saka iyo Maduki si wada jira u soo koreen academy way soo wada ahaayeen abeeshta saaxiibo way runtii saaxiibnimadooda xataa zaid weeyaan waana sababta hadda u wada Arsenal wada joogan competition-kooda marka tartankooda waa mid nabad ku dhisan marka Michael asaga iyo Rice ay weydiiyay Maduki war ma keenaa keenay yiraahdeen marka Saka marka qaar wax soo gaaro Maduki hawsha qalad Brian oo Saka war ilaaliya Maduki hawsha caba inkastoo Saka markuu bedel ku soo galo fresh ah kooxdu u fiican tahay ninkan uu ma taqaana golol uu dhalanayo oo caawin markuu Benji ka soo kaco hada tan December oo kale Saka 5 ciyaar buu ku soo bilowday Maduki 4 ciyaar buu ku soo bilowday macna waa loo kala beeqamiya ciyaarta marka wax weeyaan Maduki waxay Arsenal ku jeclaadeen mararka qaar ma cawdo hadii Saka ciyaarta lagu soo bilowdo lagu soo bilaabo ma cawdo waan wax oo Arteta u baahan yahay balse laakiin waxa lagu runtii ugu dambeyn Arsenal waxay heshay competition dhab ay u heleen bal runtii tartan dhab ay u heleen Saka Maduki challenge diyaar u yahay laakiin saaxiib way wada ahaanayaan marka waxa leeyahay ninkan asile Maduki aqbalayn Arsenal la keeno haddana asaga booska ku haysta le runtii taawata reertan waxay ku kaceen tababarooda xalay ilduuf kaamirada qabatay asoo kofay ku cabaya caagada kooxda Arsenal balkan yarka kofayga lagu cabo yaa Arsenal ku qoranta soo ku cabal Allah arkay helad ogtahay Tottenham iyo Arsenal inay dab isku doontaan yihiin oo dagaal u ka dhaxeeyo Muusana ku xiraaliga noqdo mu jeeniyaa waa ii hoos galiyeen uri qolka Bournemouth ku tuureen kulaha ilaa isbuuc Arsenal qof Bournemouth qolkeeda ku ciyaari Soomaa gurigaas arwa igaadeen uri qolka Bournemouth igu tuureen kulaha in anaga soo soconay ogaayeen aniga wax ma arkin buu kofeeyo qaba uri ya alaab la dhahay waxaan jeclahay kulaha kofeey wuxuu magaciisu espresso aan jeclahay kulaha madaxa ay xanuun uri kofeelan caag ku shubturi inuu ki Arsenal ma umaleeyeen buu uri kadib kamino ka soo qabtay war ma ninkan kofeega caagadii Arsenal kofeey ku afiyo ku cawiya ama bakeerigi ama ya waa la yaabay ya marka
وحويان تنوحي دعدي كهر عيارتي توتنهام أي لا عياريسي بانمود وحالي بانمود سمايو ودريي جولك أي ميدان دعدي والله بدن عدو إسكويهين marka Arsenal maadaama isbuucii hore halka ku soo ciyaareen laga yaabay in qolka kaga tageen shaqaalaha Arsenal laga yaabay in xataa foul gelinayn laga yaabay laakiin indhaha intay ka jireen tababuru marka kofeeyo uu qabay Frank ma ogeyn in calaamad Arsenal ku sawiran tahay caagada meesha taal waba qaatay isoo ku laafiyoonay Arsenal baa wada taal soo uu nahay markaas wuxuu yiri ma taqaana waran uu jeed uma samayn ma aniga Arsenal cadow ah caagooda ku shaah ku cabi lahaa wuri macna ya mar walba wuxuu yiri waan ku turtawri isbareysada yaa waan ku turtaa ciyaaraha ka hor marka wuxuu yiri war dadku ma ahan buulay runtii inay waxaas wax weyn iga dhigaan aniga faawla igu ahayd maanu arkin waa la igu gaaday baash waa la hoosgeli u leeyahay runtii Tottenham xal in la garaaco inta ka dhigan tahay in booska fartanaad ay joogaan Samanya ugu shubay hadda wax weeyaan hal ciyaar bis badbaadin shantii ciyaar la soo dhaafay marka tababuru xal loo hoosgeli Arsenal Allah koobka saddex xabsaas isgul geliyeen xabad kor Arsenal soo geliyeen ma jeedo ku shubta umba وجعلين عدو واو هذا وحفلت مان وبنيك يقول لا فيونا يابا كوبكي أرسنال وتاوتها هذا بعد تروح قيك يا توبرياش وشرحان معنا كبشة أيام توبر معنا مدة بشة وبلاهي أبا لما يقدم بين لودر توال عيري وكي جرسي كي يونايتد وناي إمري أرتيتا فيرك يجوارديلو كانوا توبرها ليدس وعذريني ويان أنت ومعنا أنت بشة حد جري بشة حاول ترتمي جيركي أكتيكي يفورن يهالن يود ويلسون بلاهي ويان لاعبة ويان توالغي بين هيو يا ويلسون فون بوب هذا هيستاي وانك عند ده هي ولكن بلا هيرويان ليفربول سو عياري جري ويلسون وانك لح جول يأفر عيون وتويان تن يو نوفمبر 2020 يشان ويان هلكا نوفمبر كلي هالن أمبا كيرا سريع ها مركا ويلسون زائد ويان أيان تانو وليفربول سو عياري جري جول بلا يحل جلسة كده لاي مركا انت سنا وانت بل هدانو أن أنت كالإبسي كساكي nin Liverpool soo ciyaari jiray falanqeeya yaa wuxuu taawud ma yiri Samayo wal afduban kara Liverpool baa afdubanaysa maxaa ka soo kordhay iminku Steve Bruce ku adkaystay wuxuu yiri waxa lagu jira saacadii tijaabada caafimaad ee Man City u mari lahaa Samayo marka wuxuu leeyahay Samayo Steve City weeyaan hunguriga la gelin uu leeyahay runtii kadib markuu maxsalaamay Bournemouth tijaabada caafimaad buu dhameysanayaa heshiis wuxuu siixaystay ilaa 2030 buu siixayaa labada dhinac heshiiskan waxaan loo dhaxgali karinba labada dhinac waxay heshiiyeen 3 maalmood ka hor marka wax hunguriga ma jirta Liverpool ninkan inay afduuban karaan marka warka sida uu ahaanaya Liverpool anu yaro yani beet bidix ka ciyaaro in Dale rado oo koobkii adduunka qadar ka dhacay 20 sano jirada ciyaarayay Senegal oo difaaca ayay ma taqaan heshiis la gaareen taas waa taa caawa Madrid aynu ciyaarayso wuxuu ku soo kordhan arki doona kulli iyana waa ciyaar aan warkeen dambe ku imaan doona insha Allah waan sugna labada cid final ku imaan doonta Barca xal shan ku badisay guuleystaha tartanka lagu xala sheegay in la siin doono 10 milyan marka waxay leedahay Barca waaw meesha qaala naga soo galay nimankan soo ciyaar ma زائد عيار برشام أرتب أنا وعز قلنا حتى أنا كفكت برشام مرة ما عنده يتسفر لا ريسك قادر بين أو العقير يكون هليين ماشي برش العقل لو قش أيوة بعد وحرادس إيه هدي الله عيار كوب بدك حاجة وتمام يكون هليسان هذا برش لما رستاي كرو ده كنا واسكن بعزتي أيام تام برشلونة دينا اللي قولوا هالعقيد مركز تمام كان مليان ببرشلونة دجال ما ين قولوا سو تمام من بالسين اللي هي سيد ورجال سيد الشيء يانو تواتا وأنا مركش شن إيتونات وقت جاء أن هنس فلكس نيك اللي هي شن جول يكبدن برشا كوبدنيان ومركز تمشيناد يا عدة شن شتوار ليان وليبا توتالك وقت برشا جول لو بقول فرسيد جول بيدليان سديتن يتتبع عيارات انتوني كانوا معمولين معناها بيرجيم عيارتي سدح جول بيدليان وليبا إمك واحد جول لقمر حتى برشلون شنتي عيارات لصودا فيه جول هاي خطر بدن بيهستان بلداجي أيو توبرو أماني روني ونينك حالي جولنا دليل جولنا عاوي يمال النسوق اللي من عنو كان السجاب لما يبيد عيار تهيد إلا نين كان النصوص صار تام بالربع توبرو لك ساسو يتهوى معناه ما ربع عيار دي لدي يمال كيرمان وهيمبا لكن عو كاس وحنا بدني وعليه بس ميزي مر لبا كنت مني أفرتي لما راي يتمشنتي أويس جوا إسكسو لو يابا أيوب بالله حناقة ولا نيجي ما اللي بدلي كرو هدي اللي بدلي وين اللي يرهده وميزي إنه كوب بدل الروالو سرك بريجي سيد ninkan asoo timiisaysan jiru hawsha saacadan bilaawayay kan selo xalin doona lamin yamal ah meesi birigi jamlig barsh ugu dambeysay birigu xanaaqayo 2024 marka maalintu la bedelay u xanaaqay shaafi aqliyeen yiraahdeen arrikiyo ninkan uu taaban hadad bedelaysan waxa tiraahdaa meesi inuu ku bedelan rabay macquul miya laakiin meesi already birigaas sodomeey agteedu jooga meesi gabagaba uu ahaa meesi ba laakiin yamal timiisaysan jir xataa keed ma ka yeelayo macnaha man la bedeli karo waa guriyama أنا قاعد هدال نسكلا هالين ولا وروينا يسوي عدي هذا في رحلة عيال سكلا وين متين نسوق نوان مشان جول يريس كان كحدة لوسو ساري بقى
لو من برشو كفر وانا قطر توبر حوري نين كانوا حور آدن وآمسنا ورواد نين عجائب وكنت مامي يا مركا آدن مدح أقوم هاد عليه إن كان كوحد الغصو الدري حال الجول بولي لبون عاوي يا مال هذا بريان عنو جول لا جونيور كروبي ما لازم ينتقول كريلناي بريان لما بردقوا على ورا ماشي يا جول الله يمو ولا معناه جول الله يمو ولا ميزيو معناه يا مالو جول الله يمو ولا هنتي لو سيسا كان من تدو جول بهستان هوريالدا مالin markaan intusay boqolka ciyaar u horeeyay Messi Yamal ugu horeeyay Messi goolash ku badnaa laakiin lama in caabintu ku baday markaan Yamal caawin wax ka rabo ma laha waa inuu active ku noqdo goolash haduu rabo sida Messi oo kale statistics inuu la yimaado Benoniga uu noqdo nin Ballon d'Or ku guuleystay waa inuu jawaan gool la yimaada 30 40 konton laga rabaa inuu sidaas sameeyo saas laga rabaa nin oo lagu soo dhisayo Junior Krubi ayaanta maxay tahay cunuga laga reebi laayahay cunuga wax ma dhaama uu runtii ninka leediin adduunka ugu khatar badan leediin alle runtii waka horyaalka ayaa laga hadlayaa waa ninka ugu qaalisan kamal darig iminka saacad ma statistics marka la sheegay lagu laatay in la galay tobanka ciyaar ugu qaalisan Benoni in Lamine Yamal uu number 1 joogo oo qiimihiisu suuqu yahay 343 milyan Fermin Lopez labadii ciyaar soo dhaafay hal gool iyo afar caawin ninkaana waa nin kale oo weyn ah kulay Manchester United waxa lagu la taliyay in aysan Solskjaer wala ciyaaryahankooda hore ay kooxda dib ugu dhiiban hadii qof kooxda loo dhiibay inta ku dhiman season kan waa in loo dhiibay tababar fresh ah oo aan ragii hor kooxda soo ciyaari jiray hayn ama soo maamul aan u hayn waxa arrinta soo jeedinaya Gary Neville iyo ninka la yiraahdo Jamie Redknapp ayaa soo jeedinaya ilaa mugtahay war ayaa waxay leeyihiin Solskjaer kooxda loo dhiibo iyo aragtooyin nooca ayaa jiray saacadii ugu dambeeyay ay tahay runtii kooxda in loo dhiibo rag khibrad leh oo kooxda jiidi kara sida Andoni Orella ninka leeyahay kamban mud maamula ya kaasoo kale in kooxda loo dhiibo ay soo jeedinayaan an mid kamid ah tabarash ugu fiican bay ku tilmaamayaan hatta Banmud dhaawac ugu jira hatta istil shaqo fiican qabanaya marka waa laga fiican yahay runtii kaarig iyo in la soo jeediyo wax noocaas Solskjaer ay soo laabtaan bay qabaan marka tababar fresh ah kooxda la keeno oo hore kooxda u soo joogi jirin hal la keenay qabaan amaan caawi soo noqon ama kumeel gaar soo noqon ama ciyaaryahan soo ahayn mid kala loo dhibay runtii marka Saudi maxda war waxa sheegay iminku Michael Carrick iyo Ole Gunnar Solskjaer ayaa labadooda oo ku tartamayay han laga dhigo macalin kumeel gaarka siisaka midkeen dhahay ayaa waxa labadiina la sukin dara kooxdan waa la jiidi waa la runtii labadooda hadda ka hor Man United way soo maamuleen waliba ninka la yiraahdo Solskjaer macalinka ugu dhawaa labaad keenay waa asagay Mourinho say ahayn Brig Ferguson waxa kadib marka labadooda la isku dara labadiina wax ka keenay leeyahay kooxdan ilaa inta kadib xagaga ya markii hadda ka hor Solskjaer ciyaariyay ayuu isku kumeel gaar kooxda jooga lagu laatay koogi yani kumeel gaar ahaan laba ciyaarood hal ayuu badiyay marna laga badin marka labadooda kooxda aad u garanayaan marka labadooda ay wada jir rabaan kooxda ugu dhiibaan oo kumeel gaarnimada ku kala tartamay inta kale Masiisaka war waxa la waa la jiidi waay labadiin iskaashato ma kuftaal runtii wana United oo xataa maalmaha la yaabayso war kaalmaha hoos ku jirta ma ka badin karaan Bale iyo Boston sagaalad ku jirta way ka badi waayeen oo bay la galeen taa wata waana ka yaabin United labada ciyaar ku socda in hadda yihiin Manchester City iyo sidoo kale kooxda Arsenal walla yaa horta Arsenal unaxa Arsenal Mboma iyo dad soo laabana qaarkood la soo reebi doona ya kulay sabtida ma ka soo gaaran qaarkood kulanka City marka inta